waxay doonayaan inay ummadeena bedelaan oo ay soo saaraan mid nin reer Boorama ah oo beelaha Boorama ka soo jeeda oo adin hebel u taqaani oo calankii Soomaaliland gacanta ku haya oo Soomaaliland han noolaata leh oo laakiin gudaha ka ah ninkii samaystay waxyaabaha runtii badbaadiyay dad badan oo aan jeelka ku arkay waxa weeye xuska Allah waxa weeye si kasta xorriyad looga qaado eed kasta lagu sameeyo oo qol yar lagu xiro oo lagu dul alifo waxa weeye quraanka Allah marka la hadlaysid Allah baad la hadlaysaa waxa weeye laabtu ku qaboojinaya akbar laab qaboojiya ugu weyn ee dasiya ugu weyn waa hadalka Allah waxaan doonayaa halkan inaan ka salaamo saaxiibadeedii jeelka ilaahayna waxaan idinka baryayaa in idinka soo saaro xabsiga samafalka waxay lagu soo koobay qof gaajoonaya oo cunto la siiyo ama dhaqaale oo cunto ku iibsada la siiyo qof hooy raba oo hooy loo dhiso qof xanuunsanaya oo lala raadiyo dhaqaalihi caafimaadka iyo wax la halmaala inahaasa ayay badanaaba ku soo dhacaysa dadka samafalka taas ku dhama samafalka ugu weyn ee aan aaminsanahay waxa weeye inaad u samayso samafal cid dulman qof dhibban oo maalan xidhan qofkii guduhu ku jira ma haysto cid u hadasha qof gaajoonaya tusaalahaan Boorama albaabka ugu horeeyo garaacaya jamaacad alkhayr waxa weeye reerka ugu horeeyo garaacaya siiya bal nin jeelka ku jira aan mikrofon loo ogolayn oo aan warbaahin loo ogolayn oo aan mobil loo ogolayn oo doonaya inuu kiiskiisa la sharaxo dadkaas miyaan loo u baahnay samafal sidaan ugu baahnaa waxa jira haliso badan oo dad baa jira iyo dhinacyo iyo hay'ado iyo ashkhaas hoos u shaqaysanaya oo burburinaya dhaqankeena iyo diinteena nolosheena qaybaha kala duwan yiraahdo waan danaynaa waan horumarinaa caafimaad baan horumarinaa waxbarashaan horumarinaa arrimaha ugu muhiimsan ay duulaanka ku yihiin waxa weeye diinteena iyo dhaqankeena inay burburiyaan oo mamsuuqiin inaga dhigaan oo ay soo saaraan jiil muuqa Soomaali ah gudahana afkaar lagu shubtay khatarta ugu weyn ee nagu soo foolay waa taas qorshe u yaala 30 sano soo socda 20 sano soo socda 10 sano soo socda mid fog iyo mid dhowba waxay doonayaan inay ummadeena bedelaan oo ay soo saaraan mid nin reer Boorama ah oo beelaha Boorama ka soo jeeda oo adin hebel u taqaani oo calankii Soomaaliland gacanta ku haya oo Soomaaliland han noolaata leh oo laakiin gudaha ka ah ninkii samaystay markuu cid fikir kala wadata ku barbaariso soo cidda fikirkeeda qaadanaysa waxa cidi kama hadasho wala xisbiya ka hadla wala qeyrkood ba ka hadla maanta oo dhan waxaan ku xiiqsanahay halkan biyo kama jiraan iyo halkan wadda kama jirto iyo kursiga reer hebel baa badan iyo reer hebel ku yar waxa soo dhan haris maaha haday reer hebel wada qabtaan iyo hadii wadda la sameyn waayo war waxa weeye basharkii baa burburay البشر قبل الحجر إن بشر كالجو الرياهي دت كذا لبربرنيا ودوين كانوا يجي إنه يكراسي ده إنه يجي إنه دت كأني بقى لبربرنيا عبد الرزاق فرحان بالجربة إنه نقدان دت كله وأنا نقول عبد الرزاق إنه فرحان كان هو يدي أبيه لدنيا